haddee tahay qofka qof aqoon u leh bini aadanka qaababkiisa يعني سؤال ويدي هذا أنا توس كلي جيمس كودا باقي ها لك وجران سوما دad loo malay inay fiyoyin xanuunsan وبوحان weliba xanuuna kale qaar waxaa jiro caadaad xunxun ee u qarsan yihiin oo markii la isguursado kadib ay qofkan u soo baxayso yani nooc ka gedisan bini aadanka inuu dhaqmo laakiin qofka marka banaanka joogo wuu labisan yahay Soomaaliya waxaa jira dad aad u fara badan oo xanuunsan kuwaas oo qaba xanuunada aan muuqanin gaar ahaan kuwa nafsiga ah waxaana soo badanaya dadka isdilaya lamaanayaal isdilo maqashay dad haasaabo ka dhaxeeya oo sun isii maqashay kuwa ayaga naftooda dilo maqashay mararka qaarna ma aragtay qofka xiriirka la dhaxeeyo inaad ku wareerto waxaa laga yaabaa inuu buwaalan yahay qofka aad shukaansanayso inuusan fiyoobeyn waxaa laga yaabaa adiga qudhaada inaad fiyoobeyn dadka shaqada kala dhaxaysa qaarkood inay xanuunsan yihiin dhammaantoodna dhakhtar ma aadaan haddaba see loo aqoonsan karaa dadka xanuunka noocaasa qaba oo annaga aan u naqaano kuwa ugu fudud stress ahaayo oo high level shakigiisii masiirkiisa badan yahay ama qofkan inuuba u arkay inuu dhib u geysanayo amaba intoo meel fadhiisto qofka saanoo kusii yeelaa kadib saanoo ku yeelaa masawir koo samaysto ka taqalusbo way kala duwan yihiin wayna kala halis badan yihiin waxaa jira kuwa xataa ka fikiraya adiga ku dila nafta ku dhaafiyaan si aan u baranno dadkaasi iyo nooc adiga aad tahay waxaan la fadhiso doctoraysa idil xarunta dawa ruux isla markaana inta badan ka shaqayso la tacaalidda talasiinta dadka qaba cudurrada nafsiga ah sheekooyinka qaar ee iga sheekaysay aqligaaga ayaa diidayo waxaan rabaa maanta inaan qaadano marka istijaabin caafimaad oo free ah maadaama fursad aan ku haysano aniga qudhayda muuqaalo fara badan oo murug ayaan soo gudbiyaa nooca aan ahay caafimaadkayga iyo waxa aan ka dhaxli karo ayay tala iga siinaysaa soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa Dr. Podcast dadka Soomaaliyeed xilliga hadda lagu jiro sidee uga dhaadhacsiin kartaa isbitaal aan TB laga daaweynin TB isbitaal adoo dhiig baxaya aad tagaynin isbitaal adoo keli ama madax xun aad tagaynin waxaa u baahan tahay dawo nafsiya ee imaaw sidee dadka Soomaaliyeed looga dhacsi kara xilligan su'aal fiican ay weydiisay laakiin waa marxalado kala leedahay waa ku kala qaada yani Soomaalida hadda xaaliyan like 24 ki 25 ka hadda bilowday way u nuglaayeen in ay fahmaan inay jirto bini aadanka in sida uu jirku uga xanuunsado si la mid ah inuu uga xanuunsan karo ruuxda saasay tahay weli rate fiican magaan laakiin wuu ka fiican yahay sanawaadkii hore aniga wax soo shaqaynayay 14 sano 14 sano 9 sano ka mid ah waa aad u dhibanaay laakiin waxaa samaystay channel oo awareness aad uga sameynayay oo aadahayay qofka yani ruuxda bini aadanka way xanuunsataa xanuunada oo jirka yani xanuunada nafsiyan waxa waay ma la arkayo dhiig iyo qalab iyo qaliin iyo waxaas dhan ma lagu arkayo hadii awarenessyo badan oo isdhahaya hadba sidii ku fahmi karaan ama way ka dhaadhici doontaa xanuunkan qofka haayo oo ama qolqob ku xiray ama dabeecadda ka bedelay inaysan ahayn mid jismiyan oo soo marka hadda waxaa dareemayaa dadka aqbalayo xataa inay ka mid yihiin dad da'dooda weyn tahay yani oo waayeele aniga ahaan marka hore waxay ka dhaadhacsaneed waxa aqbali doono xanuunada nafsiga inay yihiin ama dhalinyarada iyo waxaas laakiin hadda qof 70 jir ah imaanayo ama qof oo dhala keenayo ma isdheeynin marka hadda way fahmoyaan يعني حالها بر فيسبوك يوتيوب ما ka janalada meediyaha intoo dadka looga gudbiyo fariimaha kulli waa leeyahay oo idoo dawo ruux ahaan platformyada kulli yahay cuduradan amba xanuunadan horta waa xanuun Soomaali dadku dhaco waxaa jiro dad isdilo waxaa maqalnay oo adoo dhowr jeer ka sheekeynaa inay xiriir la leedahay maxaa leedahay stresska shaqo la'aanta
shakiga xataa hasaawuhu uu soo galo xiriirada galmada isbitaaladan la dhooban yahay oo maalin kasta laleeyahay qofkan waxbuu geli waaye waxbuu qaban waaye iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo qarsoon oo dhaco mid midaan rabnaa inaan ugu horumarno marka waan kaaga faa'iidaysano waxaan ku horumaraynaa annaga waxaa dhan waxaa u naqaanaa stress nafsigu ma stressa mise waa xanuuno kala duwan maxay u kala baxaan waa mahadsanta cabdicasiis xanuun nafsi markii la dhaho aada u kala baxaa laakiin laba qayba ugu weyn qaybna qofka wuu awoodaa in howlihiisa iyo shaqooyinkiisii oo wato asagoo xanuunkii qabo oo xoogaa dadka ay wax ka fafahmayaan iyo mid oo toos qofkii xataa asaga iska warbixin karin oo la arkayo inay wax ka qaldan yihiin marka haddaan ku horumarno midkan oo qofka danihiisa ku dhex wadan karo oo la noolaan karo ama oo asaga qarsan karo ma ahan inuu fudud yahay waa xanuun qofkii ku dhex nool waa wax u sheegayo maanta dhan inuusan fiicneen ama ka hergeli la-yahay ama xiriirada oo bulshada la lahaay shaqooyinkii ilmihiisa ama adig wax kasto dhinac kasto xiriirada bulshada wuxuu ka dhex noqonayaa ama mid ka dhex tilmaaman oo ka reebeyso saa sheegtayne annaga mujtamac ahaan waxaa u naqaanaa soomaalidiina stress yani kelmadda ugu yara kusoo koobeyn waxaa waaye stress ahaayo laakiin stress markii la dhaho asagaa stresska naftirkiisa kala boobaxo mawaadiic kala dheer leh yani daily life stressa iska jiro sida shaqada markay maalintaas kugu badan tahay jaam jiro kuleel jiro normally madax xanuun ku haayo yani waa stress oo qofka bini aadanka la nool yahay oo iska normal ah marna waxay noqonaysaa high level stress taasoo keenayso qofka in qayladiisa iyo inuu wax walba ciyo qalad u arko ee badato dhan walboo ka shaqeynayo hadduu macalin yahay inuu cayaal qarabaxo yani qof walba qofka ka awood sareeya ama meeluu awood ku leeyahay haddii loo shaqeeyo haddii ku noqonay laakiin midka ugu daran oo xataa ee mararka qaar dadka waalida ku qaldaan high level stresska yani sometimes qofka wuxuu gaarsiinaa xataa in ciilka haya dartiis oo rabo inuu isdilo laakiin waacigiisa joogo ma samayn kariyo attempted suicide oo sameynaa yani wax u dhow ama dabaqiyo u dhowaanaya ama suntiyo qasanaya asoo qof dad qofkii u jeedo yani iyadoo laga qaban karo wax laga qaban karo sameynaya oo maskaxdiisii ma wada maqno ciilkii ahaayo asagiyaa isku dhex maqan laga yaaba kaas marka inuu already gaarsiiyo qaybta kale ku sheegay oo ahayd inuu ismaamuli waayo marka dambe marka dhinacyadan xanuunadan kale oo depression jiro anxiety jirto waliba kuwa ugu waaweyn waxaa waaye maanta xaaliyan ay igu imaadaan dadka anxiety mid ugu badan waxay tahay qofka inuu iska walwalaayo sabab la-aan walaac qaar waxay ku leeyihiin waxay ku cabirayaan markaa jiifto oo soo kaco inuu yani soo kicitaanka qofka waacigiisa soo noqonaya inuu ila sugayo camal oo ila soo kacaa anoo later time waqti dambe gamcay haddana waxaa arkaa inuu ila soo kacayo waa wataa wuu la nool yahay kadib waxaa kusii xigsanay amoo shil dhacaa qofuu jecel yahay hadduu banaanka aado ama waxaas ku dhacaan yani cabsidiya isdaba joog waxay ku noqonaya wax asaga su-aal ah walaac gelinayo kuleel ku furaayo taas marka waxay keentaa isbitaalada lala wareegayo gaas ay ahaayo yani isbitaalkii tagaa gaas laga soo sheegaa daawadii gaas ku caba ama h baloria nothing isbedelayo ama baryaha ugu horeeya isbedelayo sababtoo ah xanuunkan walwalka hormoonkuu soo daayo toos wuxuu u tagaa caloosha wuu gubaya asagaa gaas ah stresska walwalka stresska badanaa wuxuu saameeya waa madaxa dhankiisa laakiin kan jirkan kale uu soo gudbaya iyo mid kaleo qofka nolosha dhanka harayo waa kala qaadqaadaynaa xiriirka nolosha sida guurka hasaawaha galmada waxyaabaha la xiriiro dhan hadday noqon lahayd shukaansi qofkan damac qofka inuu ka leeyahay hadday noqon lahayd family inay yihiin
waxaan u gudbaynaa isbitaaladii maanta waa la dhooban yahay xanuunkan nafsiga ah saameyn intee leeg ayuu gogosha ku yeelan karaa cabdicasiisow stresska keliya wuxuu ku yeelan karaa awood weyn iskaba dhaaf qofka haddii uu xanuuno kale uu qabo yacni qofka bini aadanka ama inuu dareen wax dareemo ama sariirta gogasha dhankeeda uu ku fiican yahay ama caadi ay ku tahay ama oo doonto waxa ku keenaya waa un hormoono ama ka dhex shaqeynayo maskaxdeena bini aadanka caadiga ah yani waa wax dheecaano soo babaxaya marka stresska markuu jiro ama xaaladahan kale markay jiraan waxaa laga yaabaa in aysanba soo bixin rabitaan wax ah haddii qofkii nafsadii oo ka rabo amarkii ma jiraayo waxaan maskaxda soo amreyso haddaba hooyooyinka qaar oo uurka iyo waxyaabahaas kasoo daaho ama aanan dhalin hooyooyinka oo uurka iyo kasoo daaho ama aan ilmaha dhalin qaarkood stressa u keenayo maahan inay iyada wax ka qaldan tahay maahan dhib inuu jiro maahan ninka inuu wax ka qaldan yahay yani stresska naftirkiisa wuxuu baabi'inayaa hormoonadii normalka ahaayo qofka u keeni lahaa ama siin lahaa waxyaabo badan ama gogosha ama inay wax dhasho ama inay deganaato marka qofkii daawo wuxuu isticmaalayaa oo jismiyan daawadaas jismigan waxaan u baabi'iyay camal because qofkii ma u jirano jiradii run hadduu qofka jirada u qabo waa vage kale ma ahan nadiidana laakiin markii xaaladan stress ee u keento daawada markuu cabo 1-2-3 days inay u shaqeysa laga yaabaa haddana sidiis uu kusoo laabto shukaansigoo kale waxaa arkaysaa laba qof oo maanta oo dhan isdagaalsan marka qofkan qofka xiriirka uu la leeyahay maanta dhan uu ka shakisan yahay haddii uu waco qof gabadha busy ay tahay wuxuu leeyahay yaa la hadlaysay ayadu waxay leedahay yaa la hadlaysaa xanuunada nafsiga qayb ma ka tahay horta xanuunada nafsiga alashaan shakiga xanuun nafsi marka lahay nacam ahaan iiga buuxi soo hoosgalayaan psychology ama cilmi nafsi marka xaaladaas aa sheegaysa oo kale cilmi nafsi ma ahan laakiin qofkiyaa wuxuusan aqoonin qaab fahamka nolosha iyo dad la socodka qaabka uu yahay wax walba wuxuu ku xugminayaa soo asaga rabo yani tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qofaa wuxuu jecel yahay xaasaawaha subaxdii see tahay haddana waxyar ka bacdi maxaa qabanaysaa maxaa yeelowsaa qofna irritation ay ku tahay oo waaba ku dhib waxaas marka qofkan iyadoo laga yaabo inuu daacad ee ka tahay xiriirka in oo isdhahayo qofkan kalena oo dhibsanayo oo dhahayo waxaan markii uu ka qaban waayo camal inuu already asaga sawirto markaa ku dhahayo qaabka nolosha loo bartay ku xiran tahay qofkan asaga iska fikiro bes yani soo asaga yahay wuxuu ku dabaqooyaa qofkan kale marka hasaawihii inuu qaldamo qof in lagu noqdo attachment oo lagu dhago in qofkii laga shakiyo oo saa sheegaysay telefoon hadduu qaban waayo maseer iyo qof kale la hadlaysay in la dhaho of course way imaanaysaa laakiin xanuun nafsi ma aha wax u baahan waayo qofka in la baro train tababar qofkii inuu iska shakiyo isagoo baloog ku saaro in maxaa leedaa mararka qaar uu ku fikiro qofkan inuusan mar dambe la hadlin lamaanaha qaar xiriirada ka dhexeeya inay isku fikiraan inay isdilaan oo kaleete heerkaas oo kale ay gaarto iidan tarkeed waa kala qaadaynaa midaan oo qofka ikhtiyaarkiis baloog ku saaraya waa taa daashiga waa qof asaga iska adeegan wey yani labadan qof faham darada balooga iyo waxaas iyo wax ka keenayo nin walbo personalitigiisa ku socdaa qofkaan muusaan noqda aniga bisaana yeelooyaa ani haddaa ahaan lasaas ma yeeli lahayn laakiin markay dil imaado total waxay soo gelaysaa xanuun nafsi markay dil imaado qofkii kow waa mid obsessive wax la dhahayaa jiro OCD obsessivekaas iyadoo yar waxaa way dadka weyse qaadka iyo salaada iyo ku celceliyo ama dahaarada musqusha kusoo daahayo ama iridi ma soo xirtay markaa jeefto ma soo xirtay yani obsessive iyadoo saas u yahay marka waxaa jiro qaab maseerka galo marka qofkii wuxuu sawiranaa high level oo ay qofkan wax xun inoo sameynayo imagekii
caadi u hor imaanayo yani wixii oo ka shakinaye caadi u hor imaanayo qofka markaasay ku kalifaysaa in xanaaq because kaas wuxuu wataa anxiety iyo stress oo isku wataa xanuunkaas marka qofkii wuxuu ku kalifayaa inuu dilo dilka dhankaas oo ka imaan karaa dilka dhanka kale oo ka imaan kara waxay tahay inuu qofkan qaybti kale oo psychosiska oo ku jiro oo hallucination qabo oo maqlaayo oo loo sheegayo warar qofkan way ku dili rabtaa ama mishinay ku wadaa ama cuduray ku wadaa yacni wax oo maskaxdiisa ka soo baxay meesha waan oolin asaga le wada sheekadan nothing oo banaanka wax jini la dhahayna ma jiro yani waxaa ka wadaa markii xaaladaas lagu jiro maskaxdiisa qaldantay ama laba qof camal oo iskula hadlaa ama qof kalaa la hadlaya hadal kaloo maqlaaya yani systemkii maskaxda ka qaldan amaba wuu arkaya kulli hallucination ay isku dhahaan inuu taas ku dilo iidane waa laga yaabaa oo dil ku imaado marka way badan yihiin noocyada ku imaan karo lamaanayaasha isqaba dhexdooda mararka qaar waxaa ka dhacdo oo Soomaali hadda aad ugu badan ninaa naagtiisa midi ku dilay naagaa ninkeedii gubtay waa dilal noocaas oo kala dhacaan xanuunadan maxay xiriir leeyihiin horta mid dhacdooyinkan hadda ka dhacayo qaldan oo ku saabsan in qof kala dhibaateeyo waa dhacdo caalamka horta weligeed ka jirtay laakiin markii la sameeyo ma jirin media iyo waxyaabaha gudbinaya adkaay hadda marka waxay usoo shaac baxeen waxay tahay because of social media iyo dadkiioo levelkii stresska iyo levelka oo problemka oo psychologiga high sii noqonayo cirka oo sii tagayo marka waxay dhacdooyinkan usoo badanayaan reasonka waa qaabkii aan kuu sheegayo oo ama OCD qofka inuu qabo oo high level shakigiisii masiirkiisa badan yahay ama qofkan inuuba u arkay inuu dhib u geysanayo amaba intoo meel fadhiisto qofka saanoo kusii yeelaa kadib saanoo ku yeelaa masawir koo samaysto ka taqalusbo aniga gabadha saaxiibta aan la ahay amba wiilka adiga saaxiibka kula xiriirka aan la dhaxeeyo waa labisan yahay waa qurux badan yahay waa caafimaad qabaa oo xanuun ugama jeedo inuu xanuunsan yahay say ku dareemi karaa yaa rabbi it depends haddee tahay qofka qof aqoon u leh bini aadanka qaababkiisa yani su-aasha ay weydiisa hadda aniga toos kaligii isku dabaqi ha laakiin waa jiraan Soomaa dad loo malay inay fiyowiin xanuunsan waa buuxaan weliba xanuuna kale qaar waxaa jiro caadaad xunxun ee u qarsan yihiin oo markii la isguursado kadib ay qofkan usoo baxayso yani nooc ka gedisan bini aadanka inuu dhaqmo laakiin qofka marka banaanka joogo labisan yahay nothing ka qaldan wuxuu jira problem gooni oo qaba so waa dadka la dhaho psychopath oo yani wax aad u xuna u qarsan laakiin ama jeegay hayaan ama mujtamacay ku dhex jiraan way firfircoon yihiin dad la aamino waa ama shuyuuq waa yani wax badan oo doorarka laga kala qaato bulshada ay ka dhex yihiin laakiin at the end of the day markuu private meel tago inuu sameeyo waxyaabo qaldan marka qof kastoo labisan laga yaabo sometimes qofka labisan qofkaas kale oo labisneen oo dhahayo isku dhex yaacsan yahay labadooda haddii la isku fiiriyo inuu kaas dhaawac ku geysanayno qofkan dhaawac ku geysanayo oo mentally haddaan usoo laabano tan maaragtay ku aadan dumarka waxaa jira gabdho fara badan weliba da-da qaangaarka ilaa ay guurka ku eg tahay badi sheekadan weligii ma arkin 10 jir 8 jir 9 jir 6 jir laga dul qaylinayo amba istuurayo dhacayo gabar markay aqli yeelatay qaangaarto waxaan ka dul qaylinayo istuurkan maxaa waay cabdicasiis horta su-aashaas waa su-aalaha ugu badan oo baryahan i heesto anigana shaqsi ahaan waxa keenaya ku sheegaya 3 mida keenayso kow waa traditional yani cunugan markuu yaryahay ama gabadhan markay yarta waxay arkaysay ayeedeed ama hooyadeed ama bulshada ku hareereysan in ay ka dhex jireen qof lagu soo dagayo la dhahayo waxaa soo qabaa kanuu qabaa marka
waxay arkee qofkaas markay wax kusoo degaan in looga nugul yahay marka kale, yani dhaawac inuusan gaaraynin ama qofka inuu loo ogolaanayo wax badan oo qaldan inuu sameeyo. marka qofkii markuu weynaado ama hysteria ha ahaato, xanuun psychological ka mid ah, ama trick oo ku sameynayo khiyaano oo mujtamac ku sameynayo, iyadoo uga dhuumanayso barnaamijyo badan in ay isku soo rido yani jinnig wixii in samayso wax ay arkaysay waaye oo ku dhacay. marka qofkii u fiirso, ma jiro qof burhaana laga qumayaa laga akrinaa ninkiisa laga tumaa oo aanan ogeyn wax dhacaya. She knows. wayahay mararka qaar waxaa lahaa gabdhaha qaar culeysyo banaanka ugu yimid oo ku qariyaan. tusaale gabadhan oo kale inay xiriir leedahay amba uraa loo yeeli karaa, amba inay jeceshay weysay, amba inay tahriibtay rabtaa, waxaasoo dhan aa saaran. in si aan su-aalo looga weydin oo kale inay wax isku soo rido, istuurto, isrido oo familkii ayadoo kaargaraan ka rabto mararka qaarna waa dhacdaa. cabdicasiisoo taas midna waa saa sheegaysay waa kas oo qofkan bointii uga dhuumanaa. maanta haddii la dhaho qoftii arjiniyaasha ku kaceene naga dhaaf habarta hadday joogto weliba ma ugu sii darno, gabadheedii dhaafa waxaa ka imaanaya xataa hadday xoogaa raggii kulkululaan lahaayeen, inkastoo iyada butumoo kale uu sugayo markii jininka laga bixinayo. laakiin waxaa jira xanuun la dhahayo hysteria oo psychological ah, oo qofka laba waxa uu dhacaa, ama wuxuu ku dalbanayaa dalaboo rabaa, qofoo rabaa inuu la joogo, meeloo rabaa in ama wuxuu ku haysanaa like qof uusan rabin inuu ka tago ka tagayo, like inuu paralyze noqdo camal. qofka laga yaabaa in xaalad paralyze oo galo markii meelaha la geeyane physically wax qaldan ma leh, laakiin lugta ma dhaqaaqayso, bilooyin sanawaadoo ku jiraya. marka qof bini aadan iska oo wax jilaayo he can't. laakiin qofkan xanuun mental ahaan waaye, waxaan ma jiraan hysteria waaye, ama naagaha lisla qaba camal man markoo mid waxyar ka bacdaba ilmaa iga soo dhacay, isbitaalaa rabaa, kanaa rabaa, ku wareerinayso si ay u haysato ninkan oo naagaha kale inka badan ay u haysato inay u sameynayso. marka labadooda ma ahan wax iyow la kala saari kara ilaa inta muddada ah, inuu qofka kas u yeelayo inay ka tahay xanuun nafsi. waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo sheeka iga sheekeeyana saaxiibana. laba naag uu qabay, xaasaska mid kamid a waxay dhahday jinni oo nina ahaayo. jinniga ninkaa marka inta nin guriga uu joogo guriga imanayo, hadduu baxo shaqada aado ama xaas kale u aado jinniga ninkaa imaanayo. way xanuunsana waa lasoo waca isaga marka waa ku wareera dhahay si ilaa markii dambe oo u yiraahdo hadday saas tahay waaba ku wada furaa jinka ninka ha guursado way reysataa allah. sababto ayadu waxay diidaysaa xaqeeda in ka badan inay qaadato. yani waxay rabtay qofkan mar walba inay halo soo dhahdo oo soo baxo. aan u soo gudubno tan kaleete oo la xiriirta dhaqamada qofka oo kale. dadka xanuunadan qaba aad u kala duwan yihiin, qiyaasyo badan way jiraan. haddii aan ka hadalnay tii xiriirka, waxaa jirto social media waa isticmaashaa platformyada, dad leef ku jiro oo maanta dhan caytamaayo, maanta dhan qaylinaayo, maanta dhan quraac qado casho leef iska saaran. dadka noocaas oo kalea iyo xanuunkan ka waran. laba mid, hadduu qofka iska saaran yahay 24 hours automatically qofkaas psychosis soo qabaa, weliba mid la dhahayo manic, ma seexanayo, cunto ma cunaayo, mana aamusayo. yani automatically waa psychiatric daawo u baahan yahay. laakiin hadduu yahay mid oo xoogaa wax maya sameynayo shubhaad ka baxsan dhaqanka ama qofka fiyo wuxuu sameyn lahay sameynayo, waa laba midoo iskugu darsantay. waa asagiioo si ciil u haayo oo dhacdo ku dhacday, iyo backgroundi celin doono inuu jirin, yani wax ka qaadi doono, yani inuu joogo meel oo
waxyaabaha qaar haddii la sameeyo aanan qofka wax ku dhicin consequence aan lahayn ha consequence background male wax oo celin doono malahan soo marka wixii darteed inuu uu samaynayo ayaama kadibna inuu stresska ku sheegaya oo levelada kale ha marka 50,000 60,000 70,000 ku daawanaa qofkaas qof waan la daawanaynaa macnaha anaka waa annaga ku dheeni anaka yaa wala marka aniga waalan because exactly ninka views ka badan waxaa laga yaabaa inuu wax oo caqli gelin sameynayo oo yani wax cilmi ah ama wax fiican oo sawadin mararka qaar hataa qofka waxaa arkaysaa inuu indhaha taagaayo afku candhuuf ka weynaa dad kortooda biyo ku cabaa ilaa marka dambe qofka inuu isqaawiyo u gaaro soo annaga ma la dhihi karaa hataa kastamarkaas aan nahay qofkaas dhibaata kusii haynaa oo ileen steps hadduu maanta 1 saac saarnaado bir 2 saac saarnaado maanta oo annagana caayo biri oo waalidkiisa caayo maalin dambe la diimaha caayo gaara qofka mugto dadkan kastamarkaa ku dhowda ma qaadi karaan xanuunadaas haddii ay muuqaaladaas daa'imaan cabdicasiis xanuunkaas waaba wax loo jeedo oo totally saameyn ku yeelanaya maskaxda everything oo negative ee markaa daa'inteed laazim qasab waa inuu ku saameeyo yani midkaas waa mid cad oo adiga qofkan waa waalin 24 saac soo jeeda adiga maxaa 24 saac ku daawadsii yani waa scrolling uu wadi laadahay meeshas maxaa uu ay kaatay marka of course waa saameyn ku leeyahay shaqada dad fara badan shaqeeyo Soomaaliyeed fasax ma helaan supermarketyada magaalada ku yaalo maqaayado iyo goobo aan arki aad uga nahay qofka bisha dhan day u fataa ma lahan hal maalin oo fasax ma lahan qaarkoodna bishii maalin fasax leeyihiin kuwa ugu fiican oo liirado supermarket ama maqaayad hebel shaqaalaha way fasaxdaa bisha hal maalin la fasaxaa qofkaas shaqada routiinka ku ay 9 joogo saacadaha badan shaqeynaayo xilliga salaadii qadada bis fasax la siinaayo saameyn ku yeelan kartaa arrintan inuu xanuun qaado oo nafsi noqdo ku stress shaqada cabdicasiis qofka somehow humanities qayb ka mid ahaa la burburiye waxaa jirto hal maqaayad aan aqaano oo yar saaxiibkay leeyahay weekii one day oo fasax leeyahay qof walba weligii ma arkin day off day one weekii ma ahan bishii ah weekii waa si saxda ha yani waa la yaabay maqaayadaas yani saaxiibka inuu wax fiican sameeyo oo fahmiyaa saaxiibana midaan kale oo iska dhaaf oo waa u soo noqonaynaa oo ofta leheen midda ofta leh waxay leedahay wax la dhaho burn out waxaa la dhahaa qofka markoo mas-uuliyadihii ka bataan yani routine ay noqonay maho saacad hebel soo kac inta soo mar waa daahay dheh kii jaamahaya ku sugaayo haddiiba oo aadanba HR ahayn qaylaha ku sugayso maybe salary in laga goosanayo perform waxan si wax soo saar ama report waxa laga rabaa marka qofka wuxuu gaarayaa in hurdada ku inay ka tagto saameynta ugu weyn u leedahay qaabkii isku arkay inay liidmato yani awal self esteem kiisa iyo kalsoonidiisa iyo wax qabadkiisa inuu ku faraxsanaa laakiin markaan oo arkayo in uu hoos u dhacayo soo markii dambe day after day waxaaba dhaawac gaari karo self esteem kii am kalsoonida asaga isku qabay inuu sameeyo markuu kacayo sababtoo uu kacayo oo hurdada uu kacayo xitaa bes waa ku qasbantahay no choice ma halkaas maalin fasaxa marka maxaa sameynaynaa ma laga yaabo qofkii inuu qaato hurdo fiican iyo nasiino fiican waxaaba lagu leeyahay maalinta asbaxaabta iyo maalinta qaraabada waay marka in sheeko kale ama family problem gashid problem kale sii gash sabtin way ku sugaysaa isla markii ku xigtaa in shaqadii la sii daba socdane oo qofkii maanta markuu shaqada fasaxa ka yahay shaqaalii qaar kamid ah ee wacaan shaqadii looga sheekeeyo maanta hebel asaan sameeyay shaqadaas socoto shaqada ku dhex jir qofkii exactly kuwa leh waaye bil leave amal ay qaadan am 10 days leave especially wariyaasha 10 days leave kaas wixii negative ahaa dhan intuu ka gambalnahay idaacadu u shaqeeya online oo ka yahay qofku u warayo fiirsanayo waaye dadkii uu weydiinaa war maxaa dhacay kii oo la soo wacaa war maanta shaqada saasaa ka dhacday that's not leave waxaa loo siiyaa dadka qof kale si totally shut down inaa ka dhahdid areada oo
shaqada akeysa dhan yani nafsadaadina isku soo jeesta marka taas waxay ku dhamaanaysaa ma jiro tababar ama wacyigelin aan u qabno in shaqada ay la socoto bini aadannimo qofka shaqada lehna oo ogyahay qofka shaqaalaha ahne oo ogyahay at the end of the day haddii wax tarkaa hoos u dhaco haddii dad badanoo shaqa la-aanaa buuxo waa iska baxeele xalkal male waa gartay marka waxaa leedahay waxaasoo dhan qeybay ka noqonayaan xaruntaada dawaruux dad badanaa ku yimaado dadka ku yimaado inay xanuun qabaan mis ogyihiin percentage og waxaa ku tilmaami lahaa 2% oo markoo ii imaado dhahayo xanuun nafsiya qabaadi tooreysa caawinaada u baahana inta kale waxay kugu imaanayaan symptoms calaamado oo ay ka joogi waayeen like in cabsidii haddaa aa kuu sheegaye mar walba cabsiyaa igu jirto quraan saar waa ka daalay wax walba waa soo sameeyey yani waxyaabaha ugu calool xumada badan oo ay qabato waxay tahay qofaa wuxuu ku leeyahay 15 sano ku dhex noolaa xaaladan yani anigu aaday ila adkaataa mararkaas oo kale qofkii marka wuxuu kugu imaanaya waxay tahay inaad kaniinisiisid marka qofka markii oo intaas ii sheego the way aa u wareysanayo ama skillska oo counselinka waxay ku kalifay in uu wada furmo oo ogaado waxaan way jiraan xanuun waa inta dhig laakiin causationka maxaa waay maanta haddaa daawo siiyo of course wuu laakiin berisid waa daawad markay joogsato waa sidii amaba u shaqaynaysaba waxaa jirta gabarha kuu soo diray oo halkaan noogu timid oo awoodi weysay sanado badan guriga inay ka baxdo oo dib aan wala hadlo ii sheegtay hadda inay roon tahay quraan saarna uu socdo sidoo horna ay dhaanto maxaa keeni kara qofku inuu aamino bannaankaba haddaa u baxdo dhibaa la kulmay bannaanka u bixin abo xaalaadkan oo nafsiga qaabkay kuu imaanaya way kala duwan yihiin yacni meelay kaa qabanayaan dadaan bixi karin way cabsanayaan waxay aaminsan yihiin in dhib dhacayo in la dilaayo dad dhimashadayba ka cabsanayaan dhimasho wax loo joogo waa in laga cabsa laakiin ka waran maanta dhan haddii kugu taagan tahay haddaa dhimane kan maxaa u cabay maxaa wax ka cabay haddaa dhimanaysaa maxaa musqushka gelay haddaa dhimanaysaa yacni waxaa ku hortaagan dhimasho the endia ku hortaagan mana la gaaro hay waqtigeeda ma la gaaro ma dhimanayso waddanka soomaaliya dhibaatooyin badanaa ka jiro mararka qaar qofka hamiyarada inuu qofka hamigiisii futureka waddankan waxba kama soo socdaan future ma lahan madaxweyne kastoo imaado buuqi waa taagan yahay baarlamaankii shalay mid ka daranaa yimid qaraxyadu way dhacayaan horumar ma jiro noloshu waa iska sii adkaanaysaa qofka in future dambe uu ka fikiro fiican uusan lahayn saameyn ku yeelan kartaa fikirkaasaa horta saameyn fikirkaas meeshuu ka dhashay fikirka naftirkiisaaba effect problemo kasoo dhashay asaga yaa saameyn yani ani maanta in wax dowladda ka dhacayo aa ku xiro oo nolosheyda waa horta beej kaloo riski ama istusaayo in sababto every dowlad kasto siyaasad iyo qaab iyo waxay leedahay waxaa isbedelo wax cusubaa la soo saaraa waxaa isbedel wax cusubaa la soo saaraa soo marka aniga ma ihi kow inaanan ka saarneen oo iyadii isku daba xiray waa mid labo cabdicisa hal mid aanaga maqan yani damoor adiga is cabsi gelisid oo wadciga isku xirtid oo dhahdid ama shaqo weysaa ama aa go-aansatid maba laga helaayo ama aa dhahdid shaqada qabiilaa laisku siinayo walaaltinimo ama aa dhahdid qaraxaasaa ka cabsanaa yani the more a negative aragtid the more negativekaagii oo run noqdo diiniyan xataa waxaa lagu leeyahay qofka ilaaha aaminsanaa ilaaha ku kalsoonaa haddeen dofdadeyna ma qanacsanid dhexdaada isku dhex qasantahay marka iiga naftirkeeda waxay u baahan tahay oo ama waxyaabaha ka sheega ka mid tahay kanaaladeeda kanaalkeyga wax goosgoosa soo dhigaa oo 3 daqiiqo 4 daqiiqo yani waxyaabaha uga hadla ka mid in qofka marka hore nolosha asaga dhinaciisa oo ka fiiriyo aysan ku xirneen qofkaas doo shaqo la-aan yahay cabdicasiis hal mid ku daro yani dhibaatooyinka ugu badan oo haysto
hal qof waxaa arkaya 3 jaamacadood 2 jaamacadood isku dhigto muxuu sameynaya baaj waay ma yani macalinkan waxa uu ku dhigayo ma ku raaxaysanaysid ama ma ku farxoosid in aan wax cusub baratay maanta waxaa ku mashquulsan tahay 4 sano horta goormee iga dhamaanay shaqo goormaa helaa يعني ما جرو قف استابس كجامعة كفر أحسن مهليسيد يا أخي معلم كان شلو وكوسو قلة ما أنتوا وكوسو قلوا لكن وحصو وكوش ريويا هذا نقولين مركو حياباس بدن ويسكجران وكسابسان لديه كرين حنون نفسي لكن psychological problem aniga waxaan sameeyaa baafin dad badan oo inay imaado qaara murugsan qofka marka la sheekaysto waa dareemi kartaa saacado adiga daqiiqad baan hadlayna caafimaadaan maxay dareemay in naftirkeyga mis ogi moogta yaa mis ogi baan ma ahan bas ilaa lambar goosto isbitaalka maada waay tala caam ahaan dadkaas siinaya ka mid tahay yani haddiiba oo waxaa routine ay yihiin ama dadka aad la kulmaysid ay yihiin dad emotion dhaawac ku geysanayo ama yani aan la cataawaysid ama la dhibaatooysid qofka markuu ii yimaado problemka isagaa haystay laakiin markaan sheekaysano waa qaybsanaa problem mugta soo marka waxaas markaa cabaar ku dhex jirtid in aa u tagtid dhakhtar psychology aa iska bixisid yani ma ahana sheekooyinkiisa sheegaysid laakiin maantana intaas ahaayaa murugadaas yani sheegitaankaas waxaa laga yaabaa in uu ku nadiifiyo oo refreshment ku siiyo oo qof cusub aa noqotid su-aashaas anigu way igu soo noqoto waxaa la dhahaa qolkaaga qofaa ka baxaayo qofaa soo galaa problem uu sheegaa wuu ka baxaa wuu soo galaa by the way sometimes wax la sheegayana waxaa waaye wax bini'aadanimada ka baxsan qaar caseska qaar oo aad u xanuun badan yihiin marka anaga qaab waxaa jira laba waxaa jiro qaab markii koo noola baray yani adi maanta waa laga yaabaa in psychology iyo waxaas aadan soo marin oo igaaga nugushahay calool xumada laakiin anaga waxaa nala baray qofkaas markuu baxo in qofka kale intuu soo gelin aa isku diyaarisid wax kale taasna ay baxdo yani iyo waxaa kale ku caawinayo adigoo wixiisa ugu dhex jirtay isku tababarte yani subconsciously aa ku caadooday waxaan markuu qofka joog runay kaa tahay waa la xanuunsane laakiin markuu baxo keiskaas waa baxyay maalinta kale oo ii imaado si dhakhtar bresh qalin galay wuu baxyay waa dhamaad marka soo ii saameeyo aad u adagta laakiin waa u baahdaa dhakhtar psychology oo hadda koor maraa u tagay Nairobi aad u mahadsantahay xaruntaadana soo booqan doonaa dadka Soomaaliyeed waxaa u sheegaynaa in ay kula sheekaystaan oo ay ku yimaadaan xilli waxaan soo marnay hadda adiga xarunaaba kuu furanba meel la aadaba aysan jirinba oo internet fiicanna uusan jirin oo xataa aan la sheekaysan karin qof gudahan isbitaal aysan ku oolin waxaan ku faraxsannahay inaan soo booqato oo aan nagu timaado hal mid farin gaarsiina waxyaabaha ugu daran dadka ka cabsadaan waxay tahay waxaan daa sheegtid yani in hadhow lagu isticmaalo lagu wacaayo marka dadkoodii u dhow saasaysan ugu sheeganaynin laakiin keiska psychology-ga waxa ugu horeeyu ka gadisan yahay ama bukaan kastoo iisoo galaa hore uga sheega waxay tahay yani muhiimadda qolkan inay tahay in wixii ku haayay ee kaa haraan xaalin aan raadino uusan shaqo ka lahayn marka xataa inaad warka ka hadashid way ku adag tahay dadka doctor xayawaa sheekaysan wuxuu dhaha waalidu waxay ka bilaabataa inaad barbarada ka cabsato waayo waa iska raacday kartaa cabsida wallahi maalintii waa qoslay wuxuu igu dhahay cabsi waali waxay ka bilaabataa dhahay adigoo wuxuu dhahay jiirka dilaayo oo digaaggaaga qalahaayo inaad barbarada ka baqdo ay ka bilaabataa dhahay marka baasan tahay taladaada noo qaadanaynaa waxaan rajaynaynaa dad fara badanna podcastka inay wax ka faa'iidaan waxaa qaybka ka tahay dhakhaatiirta aan doctor podcast ku casuunay waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iideen doctor podcasti toddobaadka dambe waxaan keeni doonaa hadba dhakhaatiirta aan noo dirtaan yaa jeclaan lahaydeen inaan halkan keenno oo aad doctor podcasti su-aala ku weydiisaan dhakhtarka muhiimaddiisu iyo weliba nuuca xanuunada aad rabtaan in su-aale iyo talooyin igala siiyo